xaafadani waxay dhinaca koonfureed ka xigtaa magaalada Garowe madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Deni ayaa xafladda ka soo qayb gali doona isagana furi doona oo halkan loo sii diyaariyay haddaba gudahayna soo eegaynaa waxaana arki doontaan mashruucan maalintii inoogu dambeysay halkii uu marayay iyo maanta halkuu marayo فنانada Hibar Nuura oo dhawaan soo booqatay maantana xafladda ka soo qayb gali doontaa iyadu waxa u bixisay Garowe bila Amal Village waxaad ka helaysaa adeegyada dukaamada ganacsiga meelihii dadku ay ku kulmayeen iyo xafiisyadii laga maamulayay xaafadan Amal Village iyo adeegyada kala supermarket saddex masaajid oo isugu jira laba yaryar iyo mid weyn makhaayadihii cuntada iskuul caalamiya laga bilaabo dugsiga hoose ilaa dugsiga sare iyo waliba college-kii wadooyin casriya biyo mareeno iyo bulaacada caama oo dadka ka dhaxeeya jardiilooyinka iyo wadooyinka socodka ee quruxda badan biyo nadiifa iyo koronto jaban oo la awoodi karayo xaruntii Blaiska swimming poolskii lagu dabaalanayay clinic-gii iyo farmasigii baankii iyo xawaaladii iyo waliba adeegyo kale oo intaasi dheer maanta waa 11 bisha November sanadka 2024 waxaan ku sugnahay xaafadda caanka ee Amal Village loo yaqaano xaafadani waxay dhinaca koonfureed ka xigtaa magaalada Garowe xaafadan markii ugu dambeysay oo ahayd waqti imka laga joogo ilaa 5 bilood waxa dhismahoodu ay socdeen ilaa dhowr guri oo kaliya imikana waxa dhismahoodu socdaa oo gabagabo waliba uu maraya ilaa 100 guri 100 guri oo gabi ahaantooda la iibsaday maanta haddaba waxa la furayaa oo xaflad weyn loo qabanayaa wajigii labaad ee dhismayaashan Amal Village madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Deni ayaa xafladdan ka soo qayb gali doona isagana furi doona oo halkan loo sii diyaariyay haddaba gudahayna soo eegaynaa waxaana arki doontaan mashruucan maalintii inoogu dambeysay halkii uu marayay iyo maanta halkuu marayo qaybtan hore wajahada markaad soo gasho iyadana isbedel xoog leh ayaa ka muuqda qaybtani waxay yeelan doontaa marka mashruucan uu dhamaado ganacsiyadii oo nooc walba leh makhaayadihii ama restaurantskii dukaamadii meelihii dadku ay ku kulmayeen iyo xafiisyadii laga maamulayay xaafadan Amal Village anigu waxaan ku tilmaami lahaa magaalo ku dhex taala laakiin dad kalena magacyo kale oo kaba wanaagsan bay u bixiyeen oo fanaanada Hibar Nuura oo dhawaan soo booqatay maantana xafladda ka soo qayb gali doontaa iyadu waxa u bixisay Garowe bila laakiin run ahaantii isbedel xoog leh ayaa xaafadan ka muuqda markay noqoto guriyihii diyaarsanaa ama gacanta lagu hayay 5 bilood ka hor markii halkan ugu dambeysay iyo maanta muuqaalka ay leeyihiin haddaba gudahaynu soo eegaynaa waa nala arki doontaa haddaba mashruucan Amal Village heerka uu maanta marayo iyo waxa la hiigsanayo waxa iiga waramaya Maxamed Faarax oo isagu ka mid ah maamulka sare ee qaybta real estate-ka ama dhulka iyo guryaha Amal Group Maxamed walaal Cabdisalaam aad iyo aad baan ugu faraxsanahay mar kale inaynu ku kulanno Amal Village aad iyo aad walaal aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii 5 bilood baa intii ka soo wareegay haaya soo dhow aad baan ugu faraxsanahay mar labaad inaan xaafadii oo maanta qurux badan sidii hore aad ku ogeyd ka qurux badan inaan kugu soo dhaweeyno maanta walaal waxa la ii sheegay 100 guri inay imika socdaan maalintii dhowr guri bay ahaayeen maalintii 5 guri baa socday laakiin maanta 100 guri baa socda hadii alla waana tagi doonaa qaybahooda oo dhan
qaybtoodna showroomkiina waa goglan yihiin waa inoo diyaar de maalintaa horena saan xusuusnay showroom kuma jirin kuma jirin maalinka maanta waa goglan yihiin waa diyaarsan xageenu ka bilaabaynaa markaa waxaynu ka bilaabaynaa touring baynu samaynaa oo socon doonaa haddii alla idmo kabacdina gurihii showroomka ahaa ayaynu tegi doonaa maxamedow intaynaan qaybaha kala gelin guryaha inaan maaragtay u sii gudbin qaybihii kala duwanaa ee ganacsiga ayaa halkan haddii alla idmo laga daafuri doonaa sida supermarketkii hadda u jeedid qaybihii carwooyinka qaybihii dharka shoppingskii kala duwanaa oo dhan baa halkan ku dhan marka iyagu kiray noqonayaan laakiin iyagu iib maaha waa kiro wey waa suuqii xaafadda wey waa suuqii xaafadda hadda dhex maranaa marka qofka halkan xaafaddan degan adeeg uguma baahanayo inuu suuqii u aado laakiin adeegiisii oo dhan halkan ku dhan yahay cabdisalaam maxamedow marka la leeyahay wejigii labaad baa maanta la daafuraya maxaa looga jeedaa maxaa uga jeedaa waxaan ugala jeednaa cabdisalaanow wejigii hore iyo wejigan waa kala duwan yihiin kal hore markaad noo imaanaysay shantii guri ee Sambal House-ka ahaa unbaa socday laakiin maantay 100 guri wax ku dhowna waa socdaan qaybtii guriyii showroomka ahaa oo Sambaliska ahaana waa gogley waa diyaarsan yihiin marka phase 1 oo dhaxaafada almost hadda waa dhamaatay gartay marka phase 2 baa loo gudbayaa ma wejigii labaad phase 2 baa loo gudbayaa oo halka ka bilaaban doona tagi doona marka Amal Village waxay noqonaysaa village rasmiya oo wax walba u dhameystiran yihiin oo waxa weeye adeegyadeeda ay u dhan yihiin oo la wada degan yahay noqon doonta insha Allah gartay ilaa intii isugu keen dambeysay shantii bilood dadku sidee u daneynayay sidee guryaha loo iibsaday cabdisalaanow sidii ugu xooganaa ayaa guryaha loo gatay runtiina waa dareemi kadhaa waqtigaad ii timi markii hore noo timi iyo maanta aanu joogno runtii waxa u dhaxeeya inta uu la eg yahay ma difference-ga muddo kooban baa daga maqleed waxaan filayaa June inay ahayd waqtigeed ma maansay maanta waxaanu joognaa November baan joognaa marka waa si degdeg oo xawliya ayay ku socdaan waa hagaag xaafadda Amal Village baan hadaba gudaha u galeynaa intaanaan gudaha gelinba halkan maxamedow waxa iga muuqata dhirtiina inay si fiican u baxday dhirtii baa si fiican u baxday beerta ku dhex lugan doona mar labaad oo la cagaariyo oo sidii hore ka qurux badan waxaynu tagi doonaa iyadana guriyihii oo diyaar ah haddii Allah insha Allah taala iyo waliba guriyihii dhisnaan iyaga laftigooda waa sii mareynaa waa dhex taginaa haddii Allah maxamedow halkan waa halka loogu talagalay in dadku ku leydsadaan ama ay ku jimicsadaan Soomaa galabtii in la iskaga naacawsado la iskaga qaxweeyo sida quruxda badan kal hore markaad imaanaysay cagaarkan saan u leeg ma uusan diyaarsanin hadda saan loo diyaari dadku inay ku nastaan cabdisalaanow oo ay ku dalxiisaan oo iskaga nastaan oo galabtii guryaha markay ka soo baxaan wax ku akhristaan kuraasooda dhex dhigtaan sidaasna ugu talagalay si aynu xusuusino maxamedow dadka laga yaabo inaanay daawan barnaamijkii hore mashruucan asaaskiisa goorma bilowday asaaskiisii waxaanu bilownay horta hindisihiisa wuxuu bilowday 2019 ayay fikradan dhalatay in xaafadda noocaana laga daafuro halkan laakiin si toos ah waxa loo gudagalay 2021 intaas waxa laga shaqeynay marka infrastructure-ka guud ee xaafadda sida cagaarintan planning-kii qorsheynteedii xaafadda biyo in la macaaneeyo ma garanaysa korontada in la diyaariyo in wadooyinka la diyaariyo drainage-kii laamiyada in la dhiso qaybahaasuna qaybaha commercial-ka in la dhiso waqtigaasay soo bilaabatay waxaan ka warhayaa in wax kasta oo lagu dhisay guryaha iyo Amal Village oo dhan halkan ku sameysanaysay halka magaalada wax uga baahan warshadii halkan inoogu dhayn cabdisalaam waxa taala bulkeedkii waa yaala roogii waa yaala qalabkii baabuurtii oo dhan waa yaala waa tagi doona waa mari doona warshadihii oo kala duwan nooc walba yihiinba halkan ku dhayn cabdisalaam waxaan ka warhayaa in deegaamada sidan oo kala dadka qurba joogtii khaasatan ay aad u jecel yihiin dadka ilaa imka guryaha idinka iibsaday ma qaran joog bay u badan mise qurba joog cabdisalaam oo boqolkiiba 90 iyo waxaan dhihi karnaa 8 wadada qurba jooga waxaad sheegtay in sanadka dambe loo soo guurayo oo ay diyaar noqonayaan Amal Village iyo guryaheeda iyo adeegyadeeda oo dhan muuqaal sidee baad doonaysaa ama aad sawirataa in halka ka soo baxayaan waxaanu sawiranaynaa xaafad qurux badan oo wanaagsan oo adeegyadeedii oo dhan u dhameystiran yihiin oo iskooladeedii iyo caafimaadkeedii iyo security-geedii iyo adeeg kasta u dhameystiran yahay subaxdii in labada laga soo kaco ilaahay idankii iyo caafimaad iyo barwaaqo sida maxamed faarax uu inoo sheegay Amal Village waxay noqon doontaa xaafad dhameystiran oo isku buuxda oo waliba dheeraadna wadata maxamedow dheeraad markaan leeyahay
waxaan uga jeedaa halkan maxay noqonaysaa hoggani cabdisalaanow master balaanka saa ku aragtay xaafadda inaad xasuutin maaqaane kala hore markaad imaanaysay waxaa ku jiray river yar ee macmala river yar oo markaan ugu talagalnay macmala oo xaafadda ku dhex wareegay waa webi oo aan biyihii ku samaynayna macmalka ahaa ayuu noqonayaa walaal isagoo la diyaariyey waliba biyo nadiif oo qurux badan oo ma garanaysaa sidii swimming pool-lada kale ayaa oolaya halkan marka xaafadda dhan waa ku wareegsan marka halkan hadda saan qiyaasay mala kuraasi baa la raacinaya kuraasi baa la iska daawanaya dadku xataa de kalluumadii waxba ku dhex jiro waxa iska daawan doona Amal Village de aniga qodayda sii sawiranaya sida noqon doonto xaafaddu wadooyin bay yeelan doontaa halkan sida hadda uga jeeday street 2 iyo street B wadooyinkan maanta waxay ka mid noqon doonaan wadooyinka maanta la dhagax dhigi doona insha Allah taala marka hadda iyagu xaafaddu ay noocyo tahay si baan raamaa baan u dhisnay guriyuhu marka qayb u dhisan yihiin halkan hadda aan marayno marka waa guriyihii houseska caadiga ah ama bangalooyinka loo yaqaanay oo ka kooban 4 qol iyo fadhigood 3 qol iyo fadhigood ayaynu hadda dhex marnaa laynkan hadda aan ku jirno waa 4 qol iyo fadhigood laynkan hadda aan ku jirnaa waa 3 qol iyo fadhigood marka sidaas iskaga soo horjeedaan marka qaybahani waa guriyihii dhaxdhiska ahaa waxa weeye houseska caadiga ahaa dhinaca kalena waxaa jira dabaqyada iyagana waa tagi doonaa cabsanaad maxamedow haddaan xusuusto halkan aynu imika marayno laba guri oo kaliya ka socday bishii June de maanta sikadii way haysataa de walaal waa taas maalinkaas laba guri baa socday laakiin maanta waa xaafadii waa haysataayo waa ku dhantahay adeegyadeedii oo dhan waxaan ku leeyahay guriyihii oo dhan waa kuwa waa socdaan laymankan marka Facebook oo dhan hada waa buuxsan cabsanaad dhismayaashood marka sidan qiyaasayo guryihiina de imika magacyadii leeyino dadkii iibsaday astaan bay idin leeyihiin Soomaa waa gurigii hebel ama gurigii heblaay guri kasta walaal ma ku jira qofkii xogtiisii oo dhameystiran iyo magaciisa iyo detail xogtii oo detail waxay ku jiraa ma ku jira walaal Cabdisalaanow de wadooyinka kaliya magacyo ma leh guri kastana wuxuu leeyahay lambar gaar u ah oo waliba ku hortaagan sida hadda uga jeedid gurigan waxa loo soo gaabiyay BB18 baa ku qoran ama BB18 waa bungalow B waa guriga bungalow B ee 18 qof baan iska leh lambarkiisa xogtiisana wuu haystaa marka hadda waxaynu tagaynaa Cabdisalaam aan galeynaa kal hore markaad imaanaysay gurigaani guriyihii Socday ka mid ah qabyadaha maanta waa guriga showroomka ama sambalka ee Googlen bal gudahaynu u gali doonaa gurigan wuxuu ka kooban yahay horta cabirka uu ku fadhiyo waa 1520 waa 15 wuxuuna ka kooban yahay 4 qol oo jiifa iyo qolkii fadhigu ka kooban yahay deyrka inta leeg buleey ilaa 2 gaari ayaa gali ka dhah waxa kale oo jira Cabdisalaam hadda albaabada tan iyo 2 albaab buleey albaabkana gaariga ka soo gali doona albaabkana dadka sidaas oo ay tahay waliba waa dadi doona hadda oo madadna waa sii dadi doona asturaad ahaan waayo qofka sida deyrka joogo isagu iskaga naso meeshiisa iskaga caweey waxaan tagi doonaa marka hadda guriga gudaha u gali doonaa hadii Allah halkan waa fadhi yar oo oo banaanka cidii kulan gaar rabta ayaa fariisanaysa ayaa halkan soo soo baxaysa cidii kulan gaar rabta Cabdisalaam gurigani waa gurigii 4 qol iyo fadhiga ahaa hadda waxaynu galeynaa waa qolkii fadhiga waa open oo jeeda saabarka guriga loo soo galo isagii baa lagu soo hormaraya albaabna ma leh si standard u dhisan yahay wadamadii hormaray guriyahooda halkan markaynu soo galno Cabdisalaam waa fadhigii iyo qadadii oo isku furan obina de maxamedow waxaan u malaynayaa dad fara badan oo halkan soo booqda inay dawlad doonaan sida nagaga iibiya waxa kale oo ah fadhigii iyo qadadii kaliya isma furnaa waxay kale u soo furan tahay jikadii qofku jikada qadada laga keeno halkan qadadii baa taala jikada marka qofku qadada ka keeno waa albaab baa isku furan fadhigiina waa ka marka xagga laga soo wareegayo meel kale toona xagga laga soo wareegayo saaray si fiican buu saaray kama showroomko kaliya baa alaabta loo soo dhigteen mise guri walba kabadhadiisa iyo kuwa karta iyo talaagadii waa la soconaya walaal guri kasta saasan u diyaarinaa oo kabadhadiisa iyo jikadan saan u doontaa saan u diyaarinaa way la socotaa guriga Cabdisalaam walaal gurigani waa qolkii guriga master bedroomkii way waa chiefkii waa qolkii weynaa hurdada sidaan isaguna noqon doona marka suuligiisina waa u laaban yahay oo qofku banaanka uma baxayo suuligiisina waa u go'an yahay chiefkan waana kala go'an yihiin waana hal albaabaan laga soo wada galaya marka sidaan isaguna uu goglay halkaana waxaan ugu talagalnay iyadoo qolkii chiefka la joogo waa meeshii closetkii ee dharka lagu bedelinayay armaajooyinka ku xirmayaan marka qofku wuxuu doono ka dhiganaya North America guryaheeda ayaa caan ku ah adu waa kobarkii qol laga dhigayo armaajadii
halkii la dhigayay kabadhkii oo qol laga dhigay wey cabsana walaal gurigan hadda aan galeynaa waa guriyii hadda gurigan hadda joogna qol kamid ah waa qolkii martida ugu talagalay oo qofka ama waalidka ama waayeelka ama dad kale martida imaanaya gurigan gaar buu yahay marka suuligiisii buu leeyahay gudaha uu soo galno waa kan qolkaas weyn oo waasac waa qol waasac isaguna saan u goobo martidu waa nafisayaan markaa boqolkii waa boqol nafis si fiican walaal si fiican waaw de marka aan kuugu celiyo maxamedow qofka yiraahdo aniga seen igu daayo aan ku qaato ma ka yeelaysaan qofkii sida yiraahdo hal igu diyaariyo asha waa ugu diyaarinaa ha mise taladan baa siinaysaa taladana waa siinayna waan u diyaarin karnaa cabdisalaanow gurigan kal hore markaad imaanaysay waa guriyada qabyada aan galnay hadda wuxuu ka mid yahay oo guriga hadda diyaar garoobay ee inoo dhamaaday sidaan cajiibka ee quruxda badan ayaa loo diyaariyay cabdisalaam muxuu kaga duwayay marka kii aynu soo aragnay walaal wuxuu kaga duwan yahay kii hore wuxuu ahaa 4 qol iyo fadhi kan waa 3 qol iyo fadhi xagga space-ka iyo garden-kana iyo beertana walaal way isleegi cabdisalaam walaal gurigan wuxuu ka mid yahay guriyaha maanta madaxweynuhu uu xarig jari doono daa furi doono hadii alaabta madaxweynaha loo sii diyaariyay isaga loo sii diyaariyay waa dhigtay uu furi lahaa gurigan marka space-kiisa iyo karadoodkiisa inta uu leeyahay oo jeeda waxaanu guda gali doonaa qolkii fadhiga halkan qudheeda kuraasi baa la iska dhigan karaa halkan laftigeedaaba lagu qadan karaayo lagu caweyn karaa laftigeeda qolkani waa fadhiga iyo qadadii waa meesha family-ga iyo reerkuba ay ku nasan doonaan ku dekeyn doonaan marka guriga aan soo aragnay afarta qol wuxuu kaga duwan yahay albaabkii dambe ma lahayn albaabkii dambe uusan lahayn kani marka karadood waasacna waa leeyahay fadhigiisa iyo qadadiisina waa open inta la leegina cabsana wala bal qolalkan aan soo eegno maxamedow de gurigan aad baan u xusuustaayo 6 bilood ka hor gurigii socday buu ka mid ahaa ayaan soo booqanay de maalinta muuqaal kale u lahaa aad u weyn maalinta muuqaal kale u lahaa cabsalaam maanta muuqaal ka duwan bulay maalinkii iyo maalinkan maanta sud saale de shaqliya shaqada isku malaya maanta ma fareemadii baa suran waxaad moodaa in family degan yahay aad iyo cabsalaam gurigaana waa qolkii chiefka weyn de furniture-ka kana bay igala sii qurux badan sidoo soo haysto sidaan isagu diyaarsan way sidaan isagu u goglan yahay qofka doonaya guryahan oo kale maadaama waqtiyada qaar kood magaalada Garowe sidaan ka warhayno ay yara kulushahay maxaa ugu tala gashay maraxada ka soo koob ay sigiisa u xiranaya oo diyaarsan meeshii si ku xiran la wata cabsalaam wala meeshii si waa si diyaarsan wala marka waa qof iyo dooqi iyo qof iyo karaanki waa qof iyo dooqi iyo qof iyo karaanki laakiin wala xafadu waa iska qabowdahayba daaqadaha la furo magaalada way ka baxsantay waa iska naacawda qof mukayf badan buu u baahan maayo iyada naacawdi najarka ahayd waa iska dhacaysa xaafadda waxaan ka hirgelin doonaa solar system waliba koronto ka jabantii magaalada oo qofku access u yeelanayo talaagadihiisa iyo mukayfyadiisa iyo wixii dhan uu shito oo koronto jabana oo solar system ayaan xaafadda ka hirgelinaa marka qofku kama urwarayo inuu AC shita iyo inuu microwave isticmaalo iyo wal ma leh u raaxaysanaya halkan waxaan ku diyaarinay guriga naqshadiisa iyo sidoo awal bi ahaa iyo tirada qolalku ka kooban yahay hadaad hal mar aad halkan ila timaadid gurigani waxa uu ka kooban yahay cabir ahaan waa 15 inta dhisana waa gurigan hadda aan ku dhex jirno waa muuqaalkii sawirka ah 141 mitir buu ka kooban yahay waa 3 qol oo jiifa master bedroomkii qolkii fadhiga iyo qadada jikadii 2 musqulood 3 musqulood iyo deyrka weyn واسع كومي marka naqshadiisina waa tan cabsana sidoo marka ahaa oo 3D-giisi iyo ka waran kan inuu hadda joogo teemka gurigii oo dhisan oo rasmi ah soo aragnay waa naqshadii hore diyaarisay Soomaa waa naqshadii hore cabdisalaam halkan aan hadda u soo baxnaa waa daaradii habeenkii iskaga nacawsan lahaa ee lagu qaxweyn lahaa la fariisan lahaa marka halkan maadaama dad fara badan oo qurba joogtii wadamo qabow ay ka imanayaan maxamedow ma aha meel lagu leersanayo waana meel lagu qorraxaysan karo walaal inta badan dadku Soomaaliya marka la joogo waxa Allah inoogu nimceeyay waa qorraxda inta badan dadku markay qurbaha ay joogaan qorrax badan ma helaan wadankii marka la yimaado subaxdii halkan la iskaga qorraxaysanayo waata qorraxdiina hayso waata halka ka muuqata waliba waqtiga waliba maxamedow waqtigan waa waqtigii jiilaalka
waxaan hubaa asxaab fara badan oo dee qurbaa joogtaa inay ku jiraan dee winterkii oo qaboobihii oo barafkii dhacayo dee annaga qorraxdii waa tan walaal markii hore waxaan soo marnay guriyihii houseska caadiga ah hadda waxaynu dhex joognaa dhinacii ay ka socdeen dabaqyadu ama guriyihii tan houseska loo yaqaan ama G+1ka ground floorka iyo first floorka leh gurigan hadda marka aan joogno cabir ahaan Cabdisalaan 20 buu ka kooban yahay space ahaan 20 kani waa magaalo dhan waa magaalo dhan way gurigani waa gurigii dabaq ahaa ee G+1ka ahaa gurigan horta space ahaan hadda wuxuu ku fadhiyaa 20 by 20 ama 20 lagu dhuftay 20 400 mitir square ayuu ku fadhiyaa Cabdisalaan intaani marka waa deer weyn oo loogu talagalay baabuurta in lagu xariisto iyo landscape-kii ama beerta lacag halkan 7 gaari baa geli karaa geli karaa iyo beertina siniinada iyo dalxiiska isaguna qofku gaarka oo loo cagaariyo kuraasiisa u dhigan karo ayaa Cabdisalaan laga helaya markaan saa soo galno qolkii fadhigan ku hormarayna oo open ah hadda finishingkii baa u dhiman kan socda marka waa fadhigii iyo qadadii oo isku furan isaguna inta badan loo yaqaano qolka martida wuxuu gudaha ku leeyahay qofku marka halkaan uu qolkiisa deganaanaya laakiin waxaan hubaa inaan muuqaal ka yeelanaynin de marka la dhameystiro finishing sidii ku yaan soo aragnay Cabdisalaan walaal qolkaani waa qolkii master bedroomkii oo ujeedaa weynka inuu leeyahay halkaan waa balcony wow halkaan waa daaqadiisii muuqaalkan indhaa ku kala qaadaya view-ga quruxda badan Cabdisalaan ayuu arkay haddaan gudaha u galno inta uu leeyahay Cabdisalaan gudaha hadda u soo gashay kalooska dadka lagu bedelanayo way inta uu leeyahay oo jeedaa ma joogo inta badan dadkiina aan garanaynin kolosodka reer Yurub badan ama meel kasta oo adduunyada ka joogtaan North America guryaheeda ayaa caan ku ah adu waa kobarkiyo qol laga dhigayo baadkiiba la dhigay waxa inta dheer Cabdisalaan halkaan aynu hadda taaganahay isagana waa qolkii fadhiga ahaa isagana ay markay chiefka ka bacdi lagu qadeyn lahaa isagana lagu qadeyn lahaa Cabdisalaan oo isaguna balcony-giisa leh oo halkaan laga daawanay waxa kale oo jira Cabdisalaan space fiican oo halkaan isagana inuu leeyahay walaal oo balcony kala wala fariisan karayo walaal marka waxaad leedahay haddaad arki jirtay guri la yiraahdo laba fadhi buu leeyahay kan laba qadu leeyahay walaal kor maxaa sii jira marka masuuduuxiiba roof terrace baa jira oo roof terrace magaalada waa tan muuqaalkeeda halka inooga muuqdo inaga hadda ka sarreyn marka waa dhul aad u qabow aadna u qurux badan Cabdisalaan dartiina dhinacan uu wajahada ma aha xaggan kale haddaad kamarada ku yara qabato waa taa waa la wada beeray amal village oo dhan way haysataa dartii waliba Cabdisalaan ilaa iyo de dhulku wuxuu jiraa halka shishe iyo xaafadu gaarsiis Cabdisalaan gurigan hadda imika aan ku socono isaguna walaal kan waa kan weeye kan cabirkiisu 20 buu ahaa kan aynu hadda ku socono cabirkiisu waa 20 wuxuuna ka kooban yahay 8 qol oo ah 6 qol oo jiif ah iyo 2 qol oo fadhiya ayuu ka kooban yahay Cabdisalaan gurigan gartay marka qolalkiina waa ka qolol badan yahay space-kiina waa ka weyn de halkana beer weyn baa uga soo baxaysa landscape-ka lacagaariyo oo la fariisan doono lagu mushaaxi doono marka intaas uu leeyahay deer guriyahan hadda aynu joogno G+1ka waxay ku kala duwan yihiin waa xagga cabirka dhulka xagga naqshada xagga designka tirada qolalka naqshada loo sameeyay sidaas waxay ku kala duwaysaa qiimayaashooda marka guribu ka weyn oo qiimayaashaasi ku kala duwan marka waxay ku xidhan tahay qofba gurigu soo dalbada nooca uu yahay ayaa qiimihiisa loo sheegay marka qof kasta guriga uu soo dalbado iyo tirada qolka qayb baa 9 qola qayb baa 8 qola qayb baa 6 qola qayb baa 4 qola hadba waxay ku xidhan tahay dhinaca dantaad ka galaysaa